السلام عليكم كولولك مستقبلك متى هي روح كولولسن مستقبلك صباح وليبا ما لسو توستا مشغول يجهورير نلاشادا حركيي ما كلا جرن ويدا مصيرك واقعيك نلاشادا aad ka doonaysid iyo nolosha dhalanteedka ee ku sawran ma tahay ruux subax waliba caajis iyo xanuun iyo walwal la soo toosa ma wiiday farxadda markii aad isku daydo in aad dhoola cadayso ma aragtaa adiga oo wajigaaga qushuuc iyo laab soo galayo haddaba haddii ay jawaabtaadu tahay saaxiibkayo wahaa ka joog wadada waa wadada halaaga iyo hogga dheer ku tuuri doonta mustaqbalkaaga laga bilaabo maanta u fiirso fikirkaaga inta aadan awood saarin awood saaridda fikirkaagana u fiirso inta aanu isku bedelin dareen eeg oo dareenkaaga u fiirso inta aanu isku bedelin asigana habdhaqan saaxiibkayo habdhaqanku waa mid aan sahal lagu bedeli karin haddii uu habdhaqankaagu isku bedelo natiijo waxa uu noqdaa masiirka waaqiciga ah ee aad ku noolaanayso haddaba adigu ma tihid ciwaanka aad naftaada siisay ama dadka kale ay ku siiyeen adigu ma tihid mid murugo iyo ciil iyo fashil kaba loo abuuray adigu ma tihid shakhsi ama shay lagu matali karo ama lagu miisaami karo midabka quruxda qaab xajmiga iyo xoogga iyo waliba lacagta adigu ma tihid wax tagay jooga ama mustaqbalka imaanaya haddaba saaxiibkayo adigu waxa tahay makhluuqa ugu fiican uguna sharafta badan ee Ilaahay abuuray haddii qof dunida jooga wax xaqiijiyay adigana waxa ku suuragal ah in aad xaqiijiso oo waliba aad shakhsigaas ama qofkaas aad ka sara marto insha Allah saaxiibkayo had iyo jeer xusuusnow in habeenku yahay bilowga maalinta jilaalkuna yahay bilowga xagayga xanuunkuna yahay bilowga raaxada arimaha adagina ay yihiin qayrka bilowgiisa saadaalinta wacani saaxiibkayo waa bilowga shakhsiga awoodiisa sida awgeed walaalkayo waxaad samaysaa ahaw mid daqiiqad waliba oo noloshiisa kamid ah u noolaada sidii ay tahay daqiiqada ugu dambeysay ee noloshaada nolow adiga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jecel nolow adiga oo akhlaaqdii rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam ku dayanaya nolow adiga oo juhdi iyo dadaal fara badan la imaanaya la jihaad nolosha oo u samir nolosha lana nolow samirka jacayl la nolow oo qadari oo qiimay noloshaada ninaynu saaxiibanahay ayaa mar aynu isla soo dhageysanay muxaadaro ciwaankeedu ahaa mawaacid macal masiir ii sheekeeyay deedna waxa uu yiri intii aan noolaa waxa aan ku tahmayay ama ku haminayay in aan helo haweenay leh sifooyin aad u wanaagsan oo gaar ah ugu dambeyntiina waan ku guuleystay laakiin muddo yar kadib guurkeygii ma ka helin dhadhankii iyo reerayntii aan ka filayay waxaan isweydiiyay maxay tahay sababtu goor ay goor dhaaftay waqtigii uu tagay waayihii ay isbedeleen da'daydii ay gorortay ayaa waxa igu soo dhacay niyadeedana soo galay jawigii saxda ahaa iyo halkii aan u socday mustaqbalka hadafkayga dhabta ah in uusan ahayn in aan guursado waxaan ogaaday in aan waqti xaadirkan doonayo in aan ahaado mid xur ah oo safri kara goortii uu doono waliba aadi kara dhankii uu rabo tacliintiisii iyo cilmigiisii dhammaystiran kara balse nasiib darro waxaan gabadhii ku furay muddo ka yar sanad tusaalahani waxa uu ina tusayaa in qofka horumarkiisa iyo dhalaalka ay nolosha tusaysaa ay u dhaxeeyo farqi haddaba walaalkayow murugta iyo ciilka ku hiiso waxaad rabtaa in aad inta cimrigaaga ka dhiman aad la noolaato oo waxaad rabtaa in dadku kugu yeeraan waa kii doqonka ahaa kii waalna kii jirana kii aan dadka ahayn
haddaba dadnimada saxda ahi waa humaaga ku jira noloshaada dhexdeeda cidina kuma garan doonto ilaa adiga aad dadka iska barto ma jiro qof in loo yimaado la dhaho hebel magacaa hebel maxaad tari kartaa hebel maxaad qabataa balse qof waliba noloshiisa asiga ayaa u kaca dadkana tusa waxa uu asigu yahay haddaba saaxiibkayow haddii aad rabto inaad ahaato guulayste mar waliba guulaysta hamiyadiisa iyo riyooyinkiisa iyo rajooyinka uu leeyahay ee nolosha uu ka leeyahayna jecel in uu rumeeyo haddii aad tahay waxa kugu waajib ah inaad samir la yimaato alla ka cabsi aad la yimaato juudi iyo dadaal fara badanna aad la yimaato masiir waaqici ah ee aad hiigsanaysa hadaf dhab ah ee aad hiigsanaysidna aad yeelato tan kaleetana nolosha mugdiga ee aad ku jirtay aad bedesho haddaba sidee baad nolosha u bedeli kartaa nolosha waxaad u bedeli kartaa waxa ay tahay in aad noqoto qof dhaqaaqa subaxii xilli hore kaca dhaqaaqa haddii ay shaqada aad haysaa aadan jeclaysan amaba kugu adag tahay iska ilow oo isaga tag haddaba qodobada nolosha lagu bedelo iyo siyaabaha aad isku bedeli karto waxaan uga hadli doonaa muuqaalkeenan muuqaalka xiga fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar kuna soo biir gambaleelkana furo si aad u hesho barnaamijyada aan idinkugu soo gudbin doono channelka dhiirigeliya 1 wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu